kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada nagala socotay meel kasta oo joogtaan baa soo dhawaada 24 saac la soo dhaafay waxaa ka socday deegaamo badan oo ka mid ah dalkaasi Itoobiya dagaaladii ugu cuslaa oo cir iyo dhul ah oo ay ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ku qaadeen maleeshiyaadka kooxda TPLF dagaaladani oo inta badan ahaa kuwa ay weerarkooda lahayd dawladda federaalka ah ayaa labada dhinac waxaa ku kala gaaray khasaare aad u ballaaran mid walibana dhankiisa waxa uu sheegtay guulo isdaba jooga iyo in uu ka gaaray dagaalkaasi natiijo wax ku ool ah oo lagu faani karo haddaba marka laga yimaado labada dhinac waxyaabaha iyagu ay soo gudbinayaan ee ku saabsan guulaha ay ka gaadheen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka kala dhacay deegaamada Canfarta gudaheeda iyo waliba deegaanka Axmaarada gaar ahaan degmada ama magaalada Alamaata iyo nawaaxigeeda dhulka ku xeeran ayaa waxaa jira ilo madax bannaan oo kale oo iyaguna xogaha laga helayo kuwaasi oo muujinaya in waxyaabaha labada dhinac ay sheeganayaan aysan inta badan ahayn kuwa ku salaysan xaqiiqda balse dagaaladu ay yihiin kuwa aad labada dhinac ay isugu riiqdeen aysan jirin ilaa iyo hadda dad amaba wax guul ah oo labada dhinac ay ku faani karaan marka laga reebo deegaamo kooban oo sida la sheegay laga riixay kooxda TPLF oo dhinaca Canfarta iyo sidoo kale dhinaca deegaanka Alamaata oo iyadana laga riixay ciidamada maamulka Axmaarada iyo waliba ciidanka militariga ah ee dalka Itoobiya oo ilaa iyo 3 tuulo laga qabsaday maalinimadii shalay ahayd dagaaladii iska daba wareega ahaa ee ka dhacay eriyada Alamaata iyo guud ahaanba degmada ama deegaanka Raaya haddaba wararka isa soo taraya ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi maalinimadii shalay ahayd dhacay marka laga yimaado khasaaraha labada dhinac kala gaaray lagu tilmaami karo kii ugu cuslaa ee indhowaale dhexmaray ama indhowaale kala gaaray labada dhinac ciidamada militariga dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ayaa waxa ay qaadeen maalinimadii shalay ahayd gaar ahaan gudaha deegaanka Canfarta weeraro isdaba jooga oo rogaal celina oo ay ku qaadayeen ciidamada maamulka Tigreega ee iyagu soo galay gudaha deegaanka Canfarta weeraradani cirka iyo dhul kale ayaa sida xogta aanu ku helayno waxa kooxda TPLF ay kala kulmeen khasaare ballaaran oo isugu jira burbur gaadiid badan oo laga gubay iyo waliba dhimasho fara badan halka dhinaca kale ee ciidamada dawladda federaalka ana marka laga reebo duqeymaha dhinaca cirka ah aysan fooda gelinin inta badan goobihii lagu dagaalamayay oo ugu yaraan sida la sheegay ilaa 5 goobood ahaa 2 goobood oo kamida ayaa sida xogta aanu ku helayno amaba ila xogogaalehi ay la wadaageen warbaahinta maxalliga ah ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada kooxda TPLF duqeymaha dhinaca cirka ah iyo waliba duqeymaha madaafiicda goobta ee loo isticmaalayay ay ugu yaraan 2 goobood dib uga gurteen balse labadii goobood midna aysan ciidamada dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya iyo xulafadoodu cagta saarin dhinaca kale marka laga yimaado dagaalkaasi khadhaadha ayaa sidoo kale waxaa jira dhaqdhaqaaqa xooggan oo ay dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya bilowday maalmihii la soo dhaafay ama 48 saac la soo dhaafay waxaa ka ambabaxayay deegaamada kala duwan gaar ahaan dalkaasi aan idhaahday deegaanka Axmaarada iyo waliba deegaanka Oromada boqolaal gaadiidka dagaalka ah oo kala duwan oo isugu jira gawaadhida jiida madaafiicda gawaadhida taangiyada ah kuwa kale ee iyaguna lagu gaashaaman ama beebeeyada loo yaqaano iyo dhammaanba noocyada kala duwan ee gaadiidka dagaalka kuwooda culus iyo kuwooda fudud ayaa waxa ay ahaayeen kuwa ku sii qulqulaya jiidaha hore ee dagaalka waxaana intooda badan subaxnimadan saaka ah ay ku sugan yihiin oo ay gaadheen goobihii loogu talagalay in ay ka howlgalaan dhammaanba agabkaasi iyo waliba gaadiidkani dagaal iyo sidoo kale
in ka badan 300,000 oo qaybaha kala duwan ee ciidamada hoostaga ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali ayaa iyaguna waxa ay ku diyaarsan yihiin jiida hore ee dagaalka waxaana saacad kaste la filan karaa in dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya saraakiisheeda ugu sareysa dhinaca howlgelintu ay ku dhaqaaqaan tallaabadii iyaga iyo kooxda TPLF ay ku kala bixi lahaayeen inkasta oo dhammaanba saraakiisha sare ee militariga dalka Itoobiya ay ku doodayaan in ay leeyihiin awood buuxda oo ay ku qabsan karaan amaba ay dib ugu noqon karaan meelo badan oo ka mid ah deegaanka Tigreega xitaa ay ku doodayaan in ay tagi karaan amaba ay mar kale soo booqan karaan magaalada Maqale ee caasimadda maamulka Tigreega ayaa haddana kooxda TPLF dhankeeda waxa iyaduna ay sheegaysaa in haatan ay isu diyaarinayso sidii ay meelo badan uga faramroojin lahayd xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali waxaana hubaala in labada dhinac haatan aysan kala itaal roonayn oo marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan qayb waliba ay haatan dhinaceeda isu diyaarisay sidii ay midda kale uga hortagi lahayd gaashaankana ay ugu daruuri lahayd afhayeenka kooxda TPLF-ta ee lagu magacaabo Getachew Reda isagu waxaaba uu uga hadlay dagaalada haatan socda si jees-jeesa iyo weliba si uu ka muuqdo kibir iyo isla weyni waxaana uu sheegay inuu weli ku sugan yahay gudaha magaalada Alamata ee xarunta deegaanka Raaya halkaasi oo sida uu sheegay uu si caadi ah ula joogo qoyskiisii iyo eheladiisii isaga oo sidoo kalena sheegay in gulufka dagaal iyo weliba dhaqdhaqaaqyada haatan socda ay yihiin kuwo ay dib ugu celinayaan beeralayda la soo khalday deegaamadii laga soo warjaafay kuwaasi oo sheegay ciddii aan dib ugu noqonin in ay goobaha dagaalka ku dhiman doonaan sidoo kale waxa ay ka digeen in dhammaanba maleeshiyaadka kala duwan iyo ciidamada maamuladu ay isku soo biimeeyaan goobaha dagaalka waxaana Getachew Reda uu sheegay in haatan wixii ka dambeeya ciddii gacanta ay ku dhigaan ay halis qarka u saaran tahay sidaas daraadeedna ay waajib tahay qof waliba in uu ka taxadaro noloshiisa iyo nafsadiisa afhayeenka ciidamada ama aan ilaahdee madaxa xiriirka dadweynaha ee ciidamada militariga dalka Itoobiyana waxa isna uu ku faanay gabi ahaanba in ay burburiyeen guutooyinkii ugu itaalka roonaa dhinaca canfarta ee ciidamada kooxda TPLF sidaasi oo ay tahayna waxa uu sheegay inay mar walba diyaar u yihiin in ay sii wadaan gulufka iyo weliba dhaqdhaqaaqyada militari ee ay araxda kaga jabinayaan kooxda TPLF waxaana uu sheegay in ciidamada militariga dalka Itoobiya iyo xulafadoodu haatan ay u darban yihiin sidii ay tallaabo uga qaadi lahaayeen kooxda TPLF oo sida uu sheegay weerar gardarra ah oo isdaba jooga maalmihii la soo dhaafay oo dhan ka waday gudaha deegaanka canfarta taasi oo sida uu sheegay ay haatan ku joojiyeen howlgal ama gulufka military ee ay bilaabeen ciidamada difaaca dalka Itoobiya si gabi ahaanba araxda looga jabiyo si kastaba ha ahaatee guud ahaanba dalkaasi Itoobiya waxaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa military iyo weliba colaadda haatan sii xoogaysanaysa ee u dhaxaysa maamulka Tigreega ee isagu horey dibad joogga u ahaa iyo xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo garab ka helaysa maamulada kala duwan ee dalkaasi Itoobiya iyo weliba xulafadeeda gaarka ah kuwaasi oo dhammaantood baa lagu wado in iyaga iyo maleeshiyaadka kooxda TPLF ay ku hardami doonaan saacadaha iyo maalmaha inagu soo foolle goobaha haatan ay isku hor fadhiyaan balse labada dhinac ilaa iyo haatan aysan ku kala itaal roonaanin waxaa dad badan ama falanqeeyayaasha arrimaha siyaasaddu ay aaminsan yihiin in marka la fiiriyo dagaalkii muddada 20 cisho ah ku dhawaada lagaga saaray guud ahaanba kooxda TPLF magaalooyinka waaweyn iyo dagaalka waqti xaadirkan la filayo mar kale in ay fooda isku daraan labada dhinac in aanay isku mid ahayn marka la isbarbar dhigo waxaana ay inta badan soo qaadanayaan walow markaasi TPLF ay ka awood iyo itaal roonayd haddana dawladda dalka Itoobiya sidoo kale sida hadda ay tahay waa ka awood iyo itaal roonayd waxaana markaasi ay haysatay xulafo xoog leh oo ay ka mid yihiin dawladda Eritrea iyo weliba dhinacyo kale oo sidoo kale ay ka helaysay xulafo ama aan idhaahdo gacan qabasho dhinaca cirka ah iyo weliba diyaaradihii droniska ahaa iyo agabyo kale oo
sahlay in laga faramaroojiyo kooxda TPLF guud ahaanba deegaanka Tigreega haatan waxa si oo dhan ma jiraan sidoo kale labada dhinac waa ay isku daaleen isku ilka beeleen wax awood ah oo ay isula hadheen ma jirto sidaas daraadeed markaste dagaal kaste oo la qaado suuragal ma aha in si dhayal ah looga itaal roonado kooxda TPLF maadaama ay cidiya ku dirir tahay oo haatan neef gowracangeeda kama gudo uu xaalkeedu yahay sidoo kalena niyad jab ballaaran laga dareemayo dhinaca ciidamada maamulada iyo waliba kuwa dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya maadaama ay dharbaaxooyin isdaba joogi ay ku dhaceen dagaaladii oo ugu dambeeyay iyo sidoo kale habqankii lagaga soo baxay gudaha deegaanka Tigreega oo isaguna noqday dharbaaxo ilaa iyo haatan ay ka soo kaban laayihiin ciidamada difaaca dalka Itoobiya sida ay dooniba ha ahaatee fardo laysu hayo laysuma faanshaan layidhi ama fardo laysu fuulay laysuma faanshaan layidhi waxaa hubaala in labada dhinac mid waliba wixii awood iyo itaal uu hayay uu jiida hore ku aruuriyay waxa kaliya ee la sugahayana uu yahay xabada oo qoriga afkiisa ka baxda ciidanku amarkii way qabaan labada dhinacba mid walibana waxa ay hawlgalkeeda ula baxday hawlgalka dib u soo celinta sharciga iyo waliba kala dambeynta waxaan filaynaa saacad kaste in uu hawlgalku bilowdo labada qolaba waxay sheeganayaan guulo waaweyn waxaan u rajaynaynaa mid waliba guusha in ay si laba jibaarto hawluhuna ay halkooda ka socdaan waa galad xasan oo daaha gadaashiisa idin kala hadlayay oo idin la tan iyo inta aynu isugu imaanayno wararka iyo warbixinada dambe ee guud ahaanba geeska Afrika gaar ahaan dagaalka ka aloosan gudaha dalkaasi Itoobiya gaar ahaan waqooyiga dalka Itoobiya waxaan idinku dhaafayaa nabadeey iyo nooli kulantee